cashirkeena maanta waa integral qaybteena afraad. Okay. kalka hore waxaan dhiganay qaacidada oo integraalka ah. sharcigana wuxuu ahaa haddaa xasuusateen hal loo qaybiyey na lagu daray hal na lagu daray hal. Okay. qaacidadana caadi ahaan isticmaalayna. Okay. hadda waxaan bilaabaa inaan sawiro graph. Okay. marka aan fududeeyo soo qaad inaan sawiraayo kan camal. kasoo qaad garaafka magaciisa waxaa la dhahaa okay kiraal noqda. garaafka magaciisa waxaa la dhahaa ya waxay la mid tahay hal lagu daray x. okay intan waxaa ku haysataa eber, intan waxaa ku haysataa hal, inta waxaa ku haysataa labo, inta waxaa ku haysataa saddex. waxaan rabnaa inaan ogaano areaha garaafkan ka hoose. macnaha waxaan rabnaa inaan ogaano areaha garaafkan ka hoose. saa ku heli karna anakoo ka bilaabeena eber ilaa iyo saddex. marka areahan saa ku heli karnaa. areahaas waxaa ku heli karnaa anakoo dhahnay anakoo qaacidadan isticmaalayna waa asli integral keliya laakiin areas waxaa ku heli karnaa anakoo dhahnay areaha haddii aan dhaho lamid yahay adigoo dhahday garaafka from a to b f of x dx. marka kan waxaa waaye kasoo qaad adigoo haysto okay functionka wuxuu rabo noqon karaa saan. inta waxaa ku haysataa a, intana waxaa ku haysataa b. iyo ba waa maha. waxaa rabtaa inaad ogaatid areaha garaafkan ka hooseeyo. areaha garaafkaas ka hooseeyo waxaa ku ogaa kartaa adigoo integraalka isticmaalay. intana waa xaduudkan waa b, xaduudkana waa a. markaasaa functionkan integration ku sameyne bacdaa jawaabta hele. bal anakoo examplekan isticmaalayn midda kalena ya caadi ahaan f of x allah. marka dii aan ya qoro waxaa ula jeedaa f of x. okay waxaan haysanaa ya waxay la mid tahay hal lagu daray x. okay garaafkeena waa kana anoo kan koobiyena. okay saa u aragtiin. okay marka functionkeena waa kana. marka areasaa ku heli karnaa. areaha laba siyaa ku heli karnaa idinkoo arkaayo.
anakoo isticmaalayna qaacidada integraalka waxaan dhahaynaa f of x waa ognaa waxay tahay a iyo ba'na waa ognaa waxay tahay areaha waxay la mid yahay markaas integraalka a'da caadi ahaanteena waa eber ba'dana waa 3 anakoo integration ku samaynayno functionkan la dhaho hal lagu daro x dx midda kale waxa waaye integraalkan laba u kala dhigayna anakoo dhahayno hal dx eber ilaa iyo 3 lagu daray integraalkan kale x dx eber ilaa iyo 3 waa xasuusatiin haddii functionkan keliya integration ku sameyno waa hal jawaabta waxaa ku soo bixaysa x ilaa iyo 3 lagu daray kan hadda integration ku samaysidna waa hal loo qaybiyo 2 oo x square ah eber ilaa iyo 3 maxaa ula jeedaa calaamadda marka calaamaddan waxaa ula jeedaa macnaha integration ku sameynee xag inta ilaa iyo xaggaas saa u heshid area graafkan ka hoose jawaabta waa maxay jawaabta waxa waayay adigoo dhahay mar walba tiradan kore waxaa ka jaree tiradan hoose okay tiradan kore mar walba waxaa ka jaree tiradan hoose marka waxaa dhehe x wuxuu la mid yahay 3 sooma x wuxuu la mid yahay eber waxaa dhehe 3 loo qaybiyey laga jaray eber lagu daray hadduu waa dhammayna qaybtan hal loo qaybiyey 2 lagu dhuftay 3 oo 2 la kor dhigay waxaa ka jaray andane hal loo qaybiyey 2 lagu dhuftay 3 oo 2 la kor dhigay jawaabteena waxay noqon doontaa 3 lagu daray 9 loo qaybiyey 2 ay noqonee because labadan eber waaye kabacdina waxay sii noqonee haddaa kan kasii shaqaysid waxay sii noqonee 6 lagu daray 95 loo qaybiyey 2 jawaabteena marka areaheena oo macnaha functionkan ka hooseeya waa 15 loo qaybiyey 2 si kalena waa ugu shaqeyn karnay sida kale ugu shaqeyn karnana haatana haddaan itusa sida kale ugu shaqeyn karnay waxa waayay taa dugsiga hoose kusoo barateen waxaa haysanaa 3 gees haddaa ujeeda okay marka dhirirkan saan ku helnaa dhirirkan waxaa ku helaynaa f of x waxay la mid tahay hal lagu daray x marka dhirir intana waxaa ognahay xaggan waxaa ognahay inay hal tahay okay xaggan waxaa waaye eber dhibic hal inta waa y axis intana waa x axis okay marka waxaa rabaa inta ilaa xaggaas inaan ogaado dhirirka waxaana ka jaraa kabacdi hal haddaa dhaho f of 3 la mid tahay hal lagu daray 3 waana 4 waxay ka dhigan tahay inta ilaa xaggaas 4 laakiin aniga waxaa rabaa inta ilaa xaggan waa 3 maadaama inta ilaa xaggaas ay hal tahay okay ballacana waa 3 marka waxaa isticmaalaa areaha oo 3 geeska waa xasuusataa baseka waxaa lagu dhufanaa height waxaa u qaybinee 2 baseka waa 3 heightkana waa 3
ماي يقرأ النقطة قال ديار هاي because area graph kan ka hooseeyo wuxuu u qaybsamaa labo midkaan waa 3 gees iyo qaybtan hoose because qaybtan hoosena inaa ilowno ma because waxaa dhaha aniga area graph kan ka hooseeyo area graph kan ka hooseeyo waa wuxuu dhan marka qaybtan inaan ku darno taas inaa ilowno ma okay qaybtaas haddaa ku dareyno sidaan u dhace wash waxaan dhahaynaa lagu daray tanna waa rectangle waa ujeedaa dhirirka waa 3 waxaan ku dhufanaynaa balaceeda oo 1 okay baseka waa 3 caadi ahaanta 3 geeska heightkeedana waa 3 waxaan u qaybinaynaa 2 waxaan ku dareynaa 3 lagu dhufta 1 waxay la mid tahay 9 loo qaybiyo 2 lagu daray 3 waxaan ku dhufanaynaa 15 loo qaybiyo 2 okay marka hadda waxaa ku fikiraysaa anakoo isticmaali karno macnaha formula oo 3 geeska basic macnaha waxaa waa wax basic oo dugsiga hoose ku soo baran why au isticmaalay integral sababta integral u isticmaalay waxa waaye functionka hadda kan waa uu fudud yahay marbo markii ka dambayso uu kasii dhib badnaana fahmt hadda kan waa iska okay haddii aad saan dhihi lahay kawar function saan okay waa xumeeye haddaa saan dhihi lahay kawar ama function aad u qaab dara badan saas saa ugu shaqeeleed macnaha haddaa ku dhaho inta ilaa ay xaggaas waxaa rabaa areahan saa u hele ma isticmaali karta marka okay marka sababta hadda labadan example aan itus isku jawaabta yihiin waxa waaye saa u fahantid inay macnaha qaacidadan qaacida jirta tahay oo marka hadalkan iguma dheeraynay xaggaana ku joojina waa inuu video